السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي الصوماليات وإذن سلامي سيدتين الحمد لله أنا وفي عليها ما شاء الله. ما أنت وحا إذن وضنا شاك وحا إذن وضا قصة ومتقانا ودعضي ونرهي القصة قصة مع قصة صومالي كما يدعين لكن وعدت أجنبي إيه كو دعضي waxaa jiray nin inaaka isqabe hawsha kada inaan jeclaa doontiin ninka inaagta marka isqabeen ninka marka inaagta waxay isku dhaleen hal gabar ay qabeen hashaas gabar oo mataqaanaa markaas dhiganaysay high school dhameysay university dhiganaysay guriga ayga leeyihiin degnaayeen adiga maasha Allah tabarakallah asaga uu soo shaqeynaya marka ninkaani wuxuu sameyn jiray wuxuu imaan jiray late mar walba wuxuu imaadaa late mar walba wuxuu sheeganayaa inuu dhaho shaqada ugu badan waxaan imaanayaa late waxa waaye waxaan leeyahay late baa imaanaya caawo mar walba islaantu soo waca wuxuu leeyahay adiga shaqada ma taqaanaa waxaan leenahay maanta meeting baa leenahay adiga been oo socoto oo dhamaanaynin ayuu sheegaa maalin walba excuse marka hadda aragtiin meeshaas marka maxaan ka qaadanaynaa nimanka excuse ka badan oo ma taqaanaa maanta oo dhan excuse leh shaqada leyd shaqada ma taqaanaa wax baan soo sameynaa ku dhahaaya waxaa waa inaan mataqaan dhagaha kor u qaadid waa maxaa jira what's going on yeah waa inaad dhagaha saasta u qaadid oo tiraadid yaa maxaa jira ina ogaatid la rabaa ma fahanteen there's something wrong you know ninkan adoo mar walba late imaanaya waxaa waaye there's something going on waxaa dhacday marka ninkii leydkiisu iska watale ayada marka gabadh naagtiisa kama shakinin asaga company ayuu u shaqeeyaa uu manager ka yahay ayadan waxay ka shaqeysaa saaluun ay ayada iska leedahay ayay obarad business ay leedahay oo saaluunkaas u furan meesha saaluunkeeda businesskeeda iska aadaa subaxda markay ilmo mataqaanaa odiga iyo gabadha iyo ay kala dirto bay ayadana baxdaa waxay aadaa saaluunkeeda business u furan gabadhan business kaasi marka iska joogta iyada maanta oo dhan adana shaqada markay u dhamaato gurigeeda hadana aaday odayga iyo wixii mataqaana gabadheeda iyo gurigeeda iska sii jooga isku sii diyaarin ay joogaysaa waxaa dhacday marka odaygii waxaa batay too much inuu noqdo yacni uu leydkiisaba kasii daraayo maalin kasii dambeyso oo mataqaana guriga joogitaankiisii oo odayga ka laciifaaya markuu imaadana waaba daalan yahay ma fahanti toos waxaa loo aaday waaba sariirtaba super tire haddaa aragtid that's waxaa waaye red flagkaas gabdhaha waxaa waaye nimanka mataqaanaa haystaan waayaa odigaada ever single day hadduu ka dhahooyo maanta meeting baa jira iyo balaaya inta kasoo dhacday iyo cali baa geed kasoo dhacay iyo maanta oo dhanba hadduu guro oo guriga markuu imaadna iriida saa ugu soo galaba there's no appetite for you yaa cuntadaada balaas adiga appetite ma lagu haayo mataqaanaa hadday jirto oo sida iriida markii laga soo galaba toos adig inta saa loogu gudbo oo mataqaanaa guriga toos loo aado la dhaha oh I'm so tired haddaa maqashid daas waxaa waa red flag waaye meeshaas waa inaa wax ogaatid waxaa dhacday marka gabadha sidiisaa ugu jirta abbaa heleyba no clue gabdho waxaa jiraan mogtahay gabdho waxaa jiraan iska yacni trust this guy yacni whatever he says okay he's right laakiin waxyaabaha dhacaya oo dhanba aan warba ka haynin sometimes it's good like you know inaad tahay qof alamkiis kac yacni too much kana ma fiicno oo controlka laakiin at least you know at least wax yar ina ogaatido yacni dareem yacni aad fahantid is good inay yacni wax loo baahan yahay waa nolosha waxaa dhacday marka abaahele waxay u ogaatay male shaqadeesa iska wadataa
maba isdhahaysaba ninkan baa odayga yaraa marka muxuu haystaa gabar yar oo gabadhiisa waa nii sheeg gabadhiisa high school dhamaysa university gabar oo ayadan exactly sidaas oo kale ah oo nin rich oo meesha laga yaqaan uu dhalay oo ayagana asaga bisa ayada bisa laga qabaa ayadana oo manyac laga badiyey oo spoil kida ayuu mataqaanaa uu xiriir la leeyahay gabadha marka gabadhaas yaray waxay imaataa saaluunka ay ka shaqayso gabadhaani saaluunka ay maamadan ka shaqayso bay gabadhan waxay u tahay kala customerkeeda waa customerkeeda oo mar walbaba timaha ka hagaajisada marka way taqaanaa way isaqaanaan gabadha markaa rabtid inaad saaluunka meeshan waxaa appointment waa like everything you do appointment waa qofka inaad sii wacdid you make appointment xilligaas imow dadka saaluumaha aada way ogyihiin you have to call garaysid mataqaana aad appointment dhimid 1 o'clock ma imaana 2 o'clock ma imaana 3 o'clock ma lagu weydiina timeka adiga ku fiican marka gabadhaas soo wacday gabadhii marka soo wacday waxay tiri saaluunka ayaan rabaa inaan imaado goorma imaanaysaa 2 o'clock markay tahay ayaan rabaa inaan imaado waxaan rabaa okay way sii qoray marka inta qof oo appointment la darbigaasay ku qorayin marka heblaayo xilligaas imaanay hebla xilligaas uu imaana darbiga ay ku qorayin marka inta oo appointment kale gabadhii baa u imaatay marka 2 o'clock gabadhii yareed baa imaatay adiga marka wuxuu dhahayay adiga subaxdii marka ay soo baxayeen wuxuu u dejiyey plan oo mataqaana trip in la isku raaci doono oo wuxuu dhahay gabadhayda yani trip aadayna يعني sometimes inaan time isla soo qaado marka way farxeen subaxdii like odayga maamada habi noqotay gabadhina habi marka iyagoo habi ay kala tageen morning markay sii kala baxaayeen odaygaa marka shaqo ugu maqay ma fahanteen odaygaa shaqada waxyar uu ka soo shaqeeyo wada waqtigiis inta dhanba wuxuu la qaataa gabadhan yar oo gabadhiisoo kale ah gabadhi yareed baa soo gashay meesha markay soo gashay hay waa la salaamay gabadhii way soo fariistay tamihii marka u hagaajisay markaas waxay leedahay oh my goodness habiyaan ahay si fiican igu hagaaji weji kalar aan qaataa weji kalar markaas waxay tiri maanta aad u faraxsan tahay maanta aad ayaad u faraxsan tahay maxaasaan ugu faraxsan tahay weji kalar aan ku fiicanahay fiiri wejigayga weji kalarkeen bedelaan ka dhahay tamihii mataqaanaa ku bedelaa markaas kalaradii u soo bixisay kalarka kaarta adiga oo mataqaana adiga ku cajibiyo oo joyskaada dooro mid bay doortay markaas waxay tiri why you so happy like this markaas waxay tiri waxaan rabaa friendkii boyfriendkeyga baa maanta la kulmaaya haye maanta meel qatar oo mataqaana uu ii kaxeen rabaa haye boyfriendkaada meeqaa sano wada socoteen markaas waxay tiri waxaan wada soconay bay tiri 8 months 8 months kan waa siduu u bilaabay waa ninkeeda every single day he's a late uu imaanooy waa 8 months aan wada soconay markaas waxay tiri is you the same age kan no he's not my age he's like my dad saana wadaagto fiiras my dad oo manin oo aabaha oo kale maala dheed garaynaysa waxay tiri lacag buu u siyaabay tiri baashtil dhahay buu waxay tiri indhaha saas igu shubaabay tiri adduunyada waxaa kaaga daran markay kuu imaato islaan ninkaada kaaga sheekeynaysa gabar ninkaada kaaga sheekeynaysa markay kuu imaato le war maalintaas uma war kuu yeelaa ma fahanteen wax kale waxa maad arkeen ninka weli markaas waxay tiri lacagta saasuu ii siiyaayo wuu i jecel yahay markaas waxay tiri okay oo ninkan marka waxay tiri oo daadkaada oo kale soo naag ma qabo is he married oh yes he married wuxuu haystaa bay tiri she has an old wife old wife ko adiga waaya old wife uu haystaa bay tiri haye oo waxay tiri bay dhahday mataqaanaa like oldkeeda yani everythingkeeda dhan waa old dee anigana waxay tiri gabar yariis baan ahay bay tiri mataqaanaa everything you know
marka waxay tiri you think naagtiis inuu furo doono markaas waxay igu tiri yes he told me naagtiis inuu furo doono waan i guursan doono oo marka habi ma ku tii inuu naagtiis soo furo naagtiis inuu ma u dhasho yes yaaba wan dhowtay u dhasho haye oo marka naagtiis wuxuu ku dhawan furaha naagta wuxuu dhawan furaya naagteeda appetite ka dhan ma taqaana uma hayba waana which is true yeah marka wuxuu dhahay asaasu igu tiri igu dhahay marka waxa dhici karta inuu cideen iga doono oo I don't know aabahay inuu agree gareyn doono laakiin aniga waxaan rabaa bay tiri aad baan u jeclay bay tiri ninkaan faanti marka asagee maanta la kulmaaya bal ka waran saa la bisanahay sidii sheekada sidii loo waday oo sheekada xilliga ay saas maraysay oo maamadan hadda isma badhaysa mogto waxa laga sheekeenaya waa odigaadi waa hadee maayada isdhaysa hadee gabadhan yari wixii ka sheekeynayso de waa xaajigaadi ma isdhaysaa no isma dhahayso days be careful nimanka sometimes inay waxay rabaan ay mataqaana mistress ka dhigtaan oo mataqaana meelaha markay ku wataan dhown ku dhaafo oo naagtiis divorce gareena dhici karta marka waxay tiri too young aan waxay tiri be careful nimanka odayaasha waxaa heli kartaa tiri somebody your age heli kartaa bay tiri marka odayaashan waxay tiri iska ilaali sheekadii marka inagoo intii noo sii maraysay oo sheekadii halkaa ay noo socoto baa waxaan ku leeyahay telefoon soo dhacay telefoonkiyaa soo dirooyo gabadha yarada telefoon loo soo diray dharg oo maamadina madaxii u hagaajinaysaa telefoonka meeshuu yaallaa telefoonka markuu meeshu soo maro halo waa ka ninkan kaaga sheekeynaya waa kana oo isoo wacooya ay ka qabo markaas waxay tiri saaluunkan joogaaye isla ninkaani saaluunka ee naagtiis leeda ee businesska kaleeda ma yaqaano horta meesha oo islaantiisa shaqo way u aadaa saaluun wayla laakiin saaluunkeeda meel uu ku yeelo ma garanayo odigaani saaluunkaas adreeska hebelkaan ku leeyahay oo kugu imaanayaa waa okay imo saaluunkaasaan joogaaye he's coming okay popsi he's coming qurux iga dhig quruxaa laga dhigay allahu akbar yaa qurux dee aa laga dhigay gabadhii qurux iga dhig way bodboodaa way kakanaysaa markaasay u hagaajisaa markaasay u boobsiisaa markaasay waxay tiri okay waa kuu boobsiinaya waa kuu eriidda waxaan ku leeyahay markuu saa ka soo galay ayada saara u soo jeeday my darling gabadhi yareed saa markuu soo dhahay iyo islaantiisii wejigeedii baa ka soo baxday aan ku leeyahay halkaas ayaan ku joojinaya sheekada waa sheeko idinku soconaysaan ku leeyahay waxaad soo qaadataa ismuuri ama koob shaaho kuleel yah hanu isku gubinaan ku leeyahay shaah kuleel yaa markay sheekada kuga socoto baa waxaan ku leeyahay soo qaada subscribe-kana ha ka iloobin share-kana ha ka iloobin like-ka ha ka iloobin waxaan ku leeyahay halkaa kala socdo alaabatation waxaa idiin soo wadaan ku dhahay wiigaane kala dardaranaan ku dhahay kala dardaran wiigan waxaasaan ku maqanaa ma fahantiin alaaba kala dardaran waxaan ku dhahay idinku soconaya baa idiin soo wadaayaan ku leeyahay marka waxay ku ekaanaysaa odigii oo soo golay saaluunkii yaa saaluunkii naagtiisii ee gabadhii girlfriendtiisa madax u hagaajinaysay ayuu rabaa inuu saaluunkii ugu imaado asaga oo soo galay naagtiisa oo indhihii ku qabatay ninkeedii gabadhii yareed oo dhehaysa darling intay baxday hab odaga la siiyey in front of naagtiisi naagtiisiyo gacanta iyo afka isku dhageen yah waa isku dhageenaan ku dha waa isku dhageen halkaas ayay ku ekaanaysaa waa inoo another mataqaanaa labaad waa insha allah baartatu way noqonaysaa waxaa ka dambeeyey marka kabacdi maxaa ka dambeeyey another one waa fiirsanaysa another video ayay noqonaysaa aad ayaan idiin salaami assalaamu calaykum waraxmatullah